salaamullaahi calaykum kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad joogtaan iyo si walbaad noo daawanaysaan kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu ku faaqidi doono maanta oo ay ku beegan tahay bisha January sanada 2013 waxaa muddo 22 sano laga joogaa burburkii dalka Soomaaliya waxaana iminka dalka Soomaaliya ka curatay dawlad federaal ah oo aan ku meel gaar ahayn hadaba barnaamijka daawadayaal waxaynu uga hadli doonaa muddada 22 sano ama 22 sano ah maxaa ka dambeeyay in burbur uu galo dalka Soomaaliya sideena looga bixi karaa burburkii xilligaas lagu soo rafaaday ama lagu soo jiray muddada 22 sano ah sidoo kale waxaan barnaamijka daawadayaal uga hadli doonaa aqoonsiga dawladda Mareykanka ee aqoonsatay jiritaanka dalka Soomaaliya iyo waxyaabaha ku soo beegay ama siyaasadda ka dambaysa in xilligan ay aqoonsato dawladda Mareykanka dalka Soomaaliya hadaba barnaamijka waxaynu nasiib u yeelanay ama marti noogu ah siyaasiga caanka ah ee laga yaqaan guud ahaan geeyiga dalka Soomaaliya ama laga yaqaan deegaanada ay degaan Soomaalida iyo guud ahaan caalamka ahna musharax kamid ah musharaxiintii u tartamay xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya sanadihii 2004 ilaa 2012 waa siyaasiga la yiraahdo Xaaji Maxamed Yaasiin Ismaaciil oo maanta aynu ku booqanay hoyga uu ka degan yahay wadanka Malaysia caasimada Kuala Lumpur mudane ku soo dhawow barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd awalan waa ku dhawahay barnaamijka Zahra waa kaaga mahad celinaya adiga iyo bahweynta telefishinka Somali Channel aad u mahadsantahay Xaaji Maxamed Yaasiin Ismaaciil sida wanaagsan ee aad nooga aqbashay casuumaadii aan ku fidanay sida nooga ogolaatay inaan wareysi kula yeelano sidaad ogtahay Xaaji muddo 22 sano ama 22 sano ayaa laga joogaa burburkii dalka Soomaaliya Soomaaliya waxa ka curatay dawlad federaal ah oo aan ku meel gaar ahayn waxaana dadku inta badan ay ku eedeeyaan dhibaatooyinkii muddada 22 ka socday in Soomaalida naftigooda ay gacan weyn ka geysteen ama ay ka dambeeyeen iyaguba marka maxaa sababay burburkaas iyo dhibaatooyinkii ka jira dalka maxaa saldhig u ahaa sideena looga bixi karaa deertaan oo isdhigi kartaa xal waa loo heli karaa maadaama ay noo dhalatay dawlad federaal ah oo aan ku meel gaar ahayn xaqiiqatan waxa weeye bisha January guud ahaan waa sanad cusub weeye oo adduunyadu siday u badan tahay farxad ku jirto laakiin annaga waxaan xasuusanaysaa waxa weeye murugo iyo baalmadow oo muxuu ahaa taariikhda Soomaaliya xaqiiqatan 22 sano waa muddo aad u dheer in ay ummadi maaragtay dhibaato noocaas oo kale ay soo marto anigu hadda jeer waxaan ka eegaa dhinac sababaha keenay burburka Soomaaliya waxaan ku saleynayaa waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadda Soomaaliyeed wuxuu ku manaystay nicmooyin aad iyo aad u fara badan nicmooyinkaasina ummadda Soomaaliyeed iyagoo ay hogaaminayaan dad Soomaaliya markii laga soo qabto 1960 ilaa maanta waxaanu ku kufrinay nicmadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala una siiyay waxaanu diidnay si cadaan oo bareera inaan ku dhaqanno shariicada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu manaystay naguna amray inaan ku dhaqanno taa markaa waxay sababtay in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo caroodo shan arrimoodna nagu ciqaabo marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciqaabtiisa hore waxa weeye midnimo la'aan iyo qulubtii ummadda Soomaaliyeed oo aad iyo aad u kala muxuu ahaa fogaata talabaad waxa weeye colaad aan dhammaad lahayn muddo 22 sano ah way ku dhinteen dad aad iyo aad u fara badan dhaawac badan naga soo gaaray 22 sano dad badan oo Soomaaliya ay ka qaxeen muxuu ahayd dhulkooda ay ka qaxeen marka waxa weeye ciqaabtaas waxa iyadana garab socotay 22 sano oo muxuu ahayd gaajo aan dhammaad lahayn iyadana aad ogtahay abaaraheena soo maray iyo magaranaysa muxuu ahayd
wixii Soomaalidu ma garanaysaa inta ku dhimatay ee gaajo u dhimatay waa aad baa uga warqabtaan iyo sida adduunka lagu soo gurmaday ciqaabta kale waxa weeye saan ogsoonahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ummada ay fogaato oo ilaahay u caroodo wuxuu ku salidaa hoggaan xun oo aan ummadana u naxariisan rabbina aan ka baqin wada ogtahay 22 sano hoggaanadiina soo maray waa ka warqabtaan oo isdaba jooga noocay ahaayeen waxa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu ciqaabay waxa weeye cadowgeenna oo meel waliba isaga yimid nagu soo qamaamay oo cadcad noo goostay shanta ciqaabood baa maanta ummadda Soomaaliyeed haysata muddo 22 sano muxuu ahayd ku soo socotay nasiib darro waxa weeye ummadda Soomaaliyeed wali ma garowsan ciqaabaha noocaas oo kala ah oo tirada badan oo isdaba jooga ah nagu habsatay muddada dheer sida looga bixi lahaa طبعا سؤال waxa kamid sidee looga bixi karaa waxa looga bixi karaa waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay alladheena idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un insaanku marka uu ciqaabay ku dhacdo ama dib ku dhacdo waxa ugu horeeyo uu ku fakaro marka ugu horeysa waxa weeye kaalmo rabbi buu raadinayaa hatta hadduu muslim ahayn waa fitra insaani ah marka ilaahay quraankiisa waa nagu sheegay ayado badan axaadiis badan baa ku soo aroortay in loo baahan yahay marka ay dhibaato noocaas oo kala ah ay ummada ku dhacdo talaabada ugu horeysa oo la qaadayaa waa inay noqotaa in rabbi loo toobad keeno in rabbi loo soo noqdo in hoggaanka marka jooga uu fahmo baahida loo qabo ilaahay subxaanahu wa tacaala noqoshadiisa loo noqonayo ummadoo dhan ay dareento dhibta marka lagu jiro waxa kaliya looga bixi karaa inay tahay rabbi oo la raali geliyo oo isagoo ma garanaysaa muxuu ahaa naga rafaca oo kor nooga qaada ciqaabtiisa noogu bedela midnimo tawfiiq nabad muxuu ahayd naga qaada cudurka iyo muxuu ahayd gaajada nagu raagtay khayraadka ilaahay uu nasiiyay oo xoolaha lahoo badda lahoo muxuu ahayd birigaas u buuxo oo biyaha badanaho waxa ilaahay uu nasiiyo nicmooyina ilaahay inuu noogu bedelo barwaaqo gaajada naga qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala qulubteena inuu isu keeno colaada uu muxuu daamurtay oo aad ogtahay 22 sano dhiiga iyaga uu daadanayo ilaahay inuu joojiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgayga naga koransiiyo naga qabto oo naga fogeeyo cadow shay inuu islaamaadka naga faa'iideysan oo muxuu ahayd na qaybsan oo khayraadkayga baabin oo dhaqankayga u sabaabin oo diinkayga u sabaabin sidoo ilaahay noo xafidayba boqolkii sano isticmaalka ilaahay noo dhowray intaanaan istiqlaalka qaadan marka waa fududahay dawada laakiin waxa weeye man yactabir yaa ku cibrad qaadanayo weeye wixii la soo maray Soomaali ilaa maanta waxay ka madax adag tahay waxa weeye inay maaragtay ilaahay u soo noqoto wali waa ka madax adagta inay Ameerika u noqoto oo fududahay inay Ethiopia u noqoto oo fududahay inay Kenya la heshiiso la fududahay laakiin ilaahay la heshiiso hoggaanka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed wali kuma baraarugsanaa taas way taan had iyo jeer ku celiyo ilaa aan rabbi u soo noqono ciqaabta iyo dhibta iyo muxuu ahayd musiibadan dul saaran naga tigmayso magac kasta aan isku bixino waxa laga baxay muxuu ahayd kumeel gaar waxaad ka baxaysaa waxa weeye markaad rabbi u soo noqoto gaajo waxay ka tagaysaa waxa weeye marka rabbi u soo noqoto qulubtayada midnimadu waxay ilaahay u soo celinayaa marka rabbi loo soo noqdo muxuu ahayd dulinimada iyo muxuu ahayd fulxumada iyo sharaf darrada ma haysata iyo ciidada ilaahay naga qaaday ilaahay wuxuu noo soo celinayaa waxa weeye marka rabbi loo soo noqdo shisheeye iyo sokeeye wuxuu noo soo noqonayaa noo imaanayaa oo nala fariisanaya waxa weeye markaan rabbi u noqono
warabbi aynu u noqonno xalka iyaga ku jira Soomaali intaas weeye inta hadda ka maqan xalka dhibtuna sidaas aan arkayaa inay u fududahay xaaji maxamed yaasiin aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad noogu sharaxday dhibaatooyinkii dalka soo maray iyo ciqaabihii ku dhacay iyo sida looga bixi karo waxaad in badan noogu soo celcelisay in ilaah loo laabto iyo in diintii loo laabto in Soomaalida ay iyagu isfahmaan intaas waynu fahanay ka sokow dhibaatooyinka aad tilmaamtay ma noo sheegi kartaa dhibaatooyin rasmi ah oo siyaasad ku beesgaraysan oo Soomaaliya loo aanay karo ama lagu tilmaami karo waxa ay ka dambeysay dhibaatooyinkaas in dalku uu burburo ilaa hadana taagan maadaama dawlad federaal aynu haysano maxaad isdhigi kartaa waa dhibaato aan wali laga gudbin oo ilaa hadana haysata xaqiiqatan asalka dhibaatada Soomaaliya waa hoggaan xumo ummad waxa ay horumar ku gaarto waa hoggaan wanaagsan dariiqa wanaagsan iyo tawfiiqda waxay ku heshaa waa hoggaan wanaagsan ummaddu hoggaan baa hogaamiya iyadu isma hogaamiso barnaamijka wanaagsan ee ummadda raba inay ku dhaqantana hoggaan baa keena fulinteedana hoggaan baa iska leh marka ciqaabta ummaddu waa ku dhacaysaa laakiin sabab waxa uu asal u ah waa hoggaan weeye marka Soomaaliya godka ay ku dhacday sabab waxa uu ahaa hoggaan xumo mar waliba oo ay dhibtimaadana waxa loo baahan yahay in hadii jeer dib loo jaleeco hoggaankaas xagee buu socdaa barnaamijku wataa waa maxay ma looga bixi karaa dhibta marka muxuu ahayd jirta anigu waxaan qabaa waxa weeye hoggaanka hadda jira oo madaxda u yahay walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu tawfiiqda waafajiyo أولاً ummadda inuu horseedo isaga iyo dawladdiisuba sida ummaddaas ay dib ugu soo noqon lahayd dariiqa sax ahaa in ilaahay toobad la warsado oo isagu bilaabo anigu barnaamijkayga ay ku jirtay ta ugu horeysa waxa weeye waxaan ka bilaabi lahaa anigu sida uu ka bilaabay maaragtay Maxamed Mursi maalintii la dhaariyay maalintii xigtay uu dhoofay Kacbadu aaday halkaas ku soo dawaafay rabbi buu magaratay macaawino weydiisay kaalmo weydiisay in ilaahay tawfiiqda waafajiyo Xasan Sheekh Maxamuud saasan ka jeclaan lahaa intuu soo dawaafayo guriga cad Washington ku yaal waa fiican tahay in la aado aad baan soo dhaweynaya laakiin waxa ka horeeyay marka hore xaq in la tago oo ilaahay magaratay muxuu ahayd lala soo heshiiyo ummaduna ay magaranaysaa muxuu ahaa ay aragto dariiqa lagu socdo inay tahay rujuuc ila Allah taas ayaan magaranaysaa marka hore anigu horta fadali lahaa awalan taas horta waxa weeye waa qodob ta kale waxa weeye hadda Soomaaliya saddex arrimood ayaa hadda jira mudana soo socday oo aan jeclaan lahaa waxa weeye in tarkiis la saaro oo focuska la saaro koow waxa jira waxa weeye xukuumad aan xigmad lahayn haddaan u bixiyo xigmaddu waxa weeye dariiq loo rabay in la qaado ay ka lunsan tahay xarakaad xag jira iyo xoogag shisheeye oo soo xoogsa tagay saddexdaa horta oo ku hardamaya maanta Soomaaliya burburka Soomaaliya inay sii kordhiyaan maahay horta muxuu ahayd ma la helayo xal lama helayo hoggaanka markaan leeyahay xukun aan xigmadaysanayn waxaan ula jeedaa waxa weeye marka aadan xoog lahayn waa inaad xeelad isticmaasho anigu wax badan baan ka digay oo aan muxuu ahayd shakhsiyan aan kala hadlay xataa madaxweynaha dariiqa la qaadayo ha noqdo dariiq musaalaxo nabad lagu raadinayo Soomaali inay iyadu heshiiso in la raadiyo oo juhdi badan la geliyo oo mar waliba uu noqdo madaxweynuhu ama prime ministerku marjac inuu noqdo qofka ugu dambeeya oo hadal xun sheega provocationka in laga fogaado haddii xataa dhinac kale uu ka yimaado wax provocation ah madaxweynuhu inuusan noqon kan hadalka tuuray inuu noqon prime ministerka inuusan bir baan ku qabanaynaa waxbaanu baabi'inaynaa macnaa waxa weeye dawlad daciif ah tahay
wali shisheeyaa ku waardiyeeya ciidamadaada wali shisheeyaa ma garanaysaa muxuu ahaa masruufa wali xor ma tihid adigoo marka sidaa daciif u ah oo gobolladii dalka oo dhanba gacantaada aysan ku jirin baabuur qafilan oo shisheeye gudihiisa ku jira ha ku hadleen hadallo ma garanaysaa colaadda sii abuuraya ama sii fogeynaya dadka sii kala fogeynaya ha ku hadlin anigu waxaan qabaa waxa weeye xigmad baa ka maqan xukuumadda in xigmaddaa la isticmaalo oo muxuu ahayte xoogga muxuu ahayte dib loo dhigto haddaan xoog hadda jirin xeelad iyo xigmad in la isticmaalo ayaan aaminsanahay qolada kale oo ka soo horjeeda oo aan hadda leeyahay xarakad ma garanaysa xag jirta xag jirnimo iyaduna faa'iido mare anigu waxaan qabaa waxa weeye mowqifkaaga adigu aad taagan tahay waxaad sheegan kardhaa waxa weeye adigoo miiska soo fadhiista oo walaalada la hadla dowlad baa dhisan hadday jirtay colaad gaara oo horay loo qabay Sharif Sheekh Axmed oo dhaxaysay iyo muxuu ahayd xarakad shabaab iyo xukuumad shabaab qodan u baxshay hadday jirtay maanta xukuumad cusub baa timi in fursad la siiyo oo wada hadal la ogolaado oo Soomaali iyadoo ay wada fariisato sababtu waxa weeye xarakadu hadday xag jirnimo ku sii socoto waxay maanaysaa waxa weeye xooga shisheeyaha oo aan tilmaami doono iyaguna ma garanaysaa waa ka faa'iideysanayaan inay dalka ku soo kordhaan oo gobol waliba iyo degmo waliba ay tagaan Soomaaliya taasina waxay sii fogeynaysaa waxa weeye siyaadadii oo dib noogu soo noqotay iyo qarnimadii Soomaaliya dib u soo noqotay gurubka saddexaad waxa weeye xooga shisheeyo soo xoogsatay waarkeena ma garanaysaa dawladaha kan hadda ciidamada Soomaaliya u soo diraya 10 kun oo ciidan ah ayaa la soo diray mushahara waxay qaataan nin waliba wuxuu qaataa $2,200 dhaawaciisa lacag badan bay ku qaataan hadduu dhinto ma garatay muxuu ahayd $100,000 bay reerkiisu qaadanaya askariga Soomaaliga wuxuu qaataa $100 ayuu qaataa waa hadii loo helo marka xoogagan soo xoogsatay waxa ay ku ma garanaysaa ay wadanka ay ku sii joogi karaan waxa weeye dagaalku sii socdo waa nabad la'aanta sii jirta waa marka waxaan ku talinayaa waxa weeye xukuumaduna xeel iyo xigmad la timaado xarakaadka ka soo horjeedana xag jirnimada ha joojiyaan xoogaga noo soo xoogsatayna sida nooga bixi lahaayeen aynu ka wada tashano oo dhulkii aynu nabadayno oo ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay nabad si nolol loo helo marka dhibsi jirta maantana taas weeye saddexdaas mushkilo oo hadda maanta jirta xal in loo raadiyo ayaan qabaa xaaji maxamed yaasiin aad ayaad u mahadsan tahay tusaalooyinkii wanaagsanaa ee sidii aad noogu sharaxday dhibaatooyinka dalka ka jira iyo sida looga bixi karo waxaad intii aad tafaasiisha ku jirta aad noo sheegtay in saddex arimood ay Soomaaliya ka jiraan xukuumad aan xigmad lahayn xarakaad xag jir ah iyo xoogag soo xoogsatay marka hadii aan qodobadaas gudagalno qodobka ugu horeeya waa xukuumadan xigmad lahayn miyaysan kugu baraarugsaneen ama miyaadan ogeen in dawladdan ay tahay dawlad federaal ah oo ka gudubtay marxaladii dalka soo maray miyaadan ogeen in haatan laga gudbay dhibaatooyinkii muddada 22 sano lagu jiray hadii aad dhaliil qabto ama waxyaabo oo aad dhaliileys ay jiraan maxaa nooga sheegi kartaa dhaliilahaas oo ku aadan in dawladdan haatan ay hareer martay hadii ay jirtana dhaliilahaas sidee looga gudbi karaa oo xal waara loo heli karaa maadaama aad tahay siyaasi caanka ah guud ahaan geyga Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka in badan dadka ay xiiseynayaan talooyinkiisa iyo tusaalooyinkiisa وسؤال أضف عن أزاري بارك الله فيك حقيقة وحوي مركان لي هاي حكومة عن حكمة لهين وحاولت شيء ذا حكمة وحوي إن فهمته ترى الصوبا وقت الصوبا يمش كوهبونتها مركز صوبا مركا وحنو كسب وحنو قصو سومالي أختها سومرتي labada xukuumadda ugu dambeysay tii Cabdullaahi Yuusuf iyo tii Shariif 8 sanadood oo magaranaysa dagaal ah labada madaxweyne bay tuutayaal wateen 8 sano oo dagaal ah waxaanu ka helay natiijo ah waxay noqotay burbur dhimasho dhaawac iyo qax
baanu ka helay marka dawladda markaan leeyahay xigmad mare tan hadda joogta waxaan ula jeedaa dariiqii hore burburka ahaa oo ii muuqda haddana isaga sii qaado oo xigmad la'aan waa macnaa garasho fiican ma aha garashada fiican oo xigmadda leh waxa weeye godka walaalkay ku dhacay oo walaalkii ka horreeyay uu ku dhacay inaan anigu ku dhicin ummaddan u horseedin burbur iyo baaba kale inaan u horseedin markaan leeyahay xigmad male waxa weeye bilowgiiba hadda waxaan ku jiraa dhowr bilood waa bilowgii dawladda cusub waa bilowgii waxa laga bilaabay waxa weeye ciidan urursi iyo abaabul dagaal iyo waad ogtahay safarka ugu horeeyay madaxweynaha wuxuu ku tagay Itoobiya wuxuu ka codsaday ma garanaysaa muxuu ahayd in garab laga siiyo dhinaca kan muxuu ciidanka wuxuu tagay Turkiga sidaas oo kale wuxuu codsaday waxay ahayd ugu horeeyay in gacan laga siiyo xagga ciidanka wuxuu tagay Kenya wuxuu tagay Uganda safarro badan buu tagay wuxuu tagay Djibouti buu tagay wala ciidanka la ii train gareeyo afarta bilood ma uusan nasan habeen iyo maalin safar buu ku jiraa waxa ugu weyn uu ka hadlayana waxa weeye ciidan la dhiso marar badan dawladdu waxay ka hadlaysaa waxa weeye cunaqabateynta xagga hubka in muxuu ahayd la qaado afartii bilood la rabay institutionskii dawladda in la dhiso waqti badan waxa lagu lumayay waxa weeye hub urursi iyo ciidan ciidanka yaa loo urursanayaa way hubka yaa la soo qaadanayaa waa ma shisheeyaan la dagaalamayna ma cadow shisheeyaan la dagaalamayna hubka cidda loo urursanayo ciidanka loo urursanayo soo ma aha wiilashaada soo ma wiilashii Soomaaliyeed in hebera soo ma al-shabaab qabiil Soomaaliyeed oo aan ku jirin mare Soomaali way 99 in yar oo ajaanib soo raacda ma wiilka la dilay ayaa waa ma Ethiopian ba ma Kenyan ba ma Burundi ba ma Israa'iili ba ma Japanese ba Soomaali ba xabad yaa u soo wata Soomaali oo yaa madaxweyne u tahay yaa prime minister u tahay dawladda yaa u tahay wiilkaas waa qoriga aad u wadato waxa loo baahan yahay marka waxa weeye muxuu ahaa dadaal badan in la galiyo dhiigii hore u daatay inaan dhibic dambe aysan dhicin dhiig dambe inuu soo dhicin dhaawac dambe oo wiil Soomaaliyeed loo geysto inuu san dhicin qax dambe oo la qaxa inuu san dhicin dawladda waxa loo igmaday oo mas'uul looga dhigay inay Soomaaliya nabad u keento haddii nabad xoog lagu helaayo Mareykan oo NATO madax u ah 650,000 oo ciidan wata ayaa nabad khasab ku keen lahaa Afghanistan oo la dagaalamayaan koox yar oo sida shabaab oo kala marka haddii aan nabad xoog lagu keen kareen waxa la leeyahay ay wiilashaadu yihiin mas'uul waxaad ka tahay waa ummadaada waa madaxweyne tahay ama prime minister tahay ama dawlad tahay ama baarlamaanka Soomaaliya nabad bay u baahan tahay dhiigga in la joojiyo oo muxuu ahaa sida macna darrada u daadanaya markaan leeyahay marka dawlad xukuumad aan xigmad lahayn waxa weeye priority ka qaldan awliyaadka ka qaldan inta musaalaxa la galin lahaa oo juhdi badan la galin lahaa waxa moodaa afartii bilood in waqti lagu lumeeyay hub urursi iyo ciidan urursi iyo ma garatay muxuu ahayd waxyaabo noocaas oo burburka sii kordhinaya marka waxaan leeyahay xigmadda waa idinka maqan tahay Allah idin soo celiyo juhdiga badan iyo diyaarada raaca iyo safarada badan aanu galayno aynu u galino sidii aan u helin lahayn maartay musaalaxo Soomaali gudaheeda ah anigu taasa iyo mabda ah waxaan u arkaa waxa weeye halka kale Soomaali ee maanta ku gaari kara nolol waxa weeye iyadoo heshiisa waa nabad annaga uunba dhexdeena ayaanu ma garanaysaa muxuu ahaa ka heshiin karnaa 22 sano adduunka oo dhan baan ugu daaray oo in annagu cidna heshiisiin ka dhama jirto annagu haddaan heshiin marka mashruuc in laga dhigto ma aha dagaalku mashruuc buu noqon karaa aan dhamaanayn 4 sano xasan sheekh hadda uu madaxweyne ahaan doono dii Allah idmo iyo mid ka badanba dagaalka soconaya gurigana lagu ma kala adkaado
marka anigu waxaan qabaa waxa weeye xigmad la'aanta taasaan ula jeedaa qodobka labaad oo ah ma garatay xarakad ma garanaysa xag jirnimo ah iyadana horaan u xusay xag jirnimo wax faa'iido ay keenaysa male xag jirnimo Taliban ba iyo qaacida waa xag jir hadday waxa qabanayaan xukunka waxay qabsan lahaayeen gacanta ku dhigi lahaayeen Afghanistan Iraq bay ku dhigi lahaayeen Liibiya ku dhigi lahaayeen meelaha ka dagaalamayeen bay ka dhigi lahaayeen wahagaag xaaji maxamed yaasiin aad baad u mahadsan tahay waxaad noo sheegtay ama soo jeedisay adeemo fara badan oo dawladda federaalka ee curdanka ah ama cusub aad u hayso waxaad ka mid ah musharaxiintii u tartamayay xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya waxaad la tartamaysay madaxweynaha iminka talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud haddii aad ku guuleysan lahayd xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya waxa laga yaabi lahaa ama macquul ahaan lahayd in aad mari lahayd wadada hadda uu maray Xasan Sheekh Maxamuud ama wada la mid ah marka miyaysan eedeyntaada ku beesgareysnayn ama loo arkin in ay tahay in laga badiyay oo ay ku beesgareysan tahay in aad heli weysay madaxtinimada dalka Soomaaliya isla markaasna dadka qaarkood ay u arkaan in aad caradii lagaaga badiyay aad ka dul dhacday ama aad ku eedeynayso dawladda Soomaaliya in ay tahay dawlad daciif oo wali aanan waxyaabihii loo unkay ama loo idmada aysan qaban asar waa bilmunaasaba aad su'aal wanaagsan waaye laakiin awalan waxaan ku sheegayaa 25 murashax baan ahayn qof baa horta heli lahaa haddii uu ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuudna حقيقة أنا وشرف وين بيهد لأنه وحوي وأنا صاحب كيا هذه أنا قوليسان نك قوليسان ويسقون نقدنا آدبان وشعراء مركز كره أنا إيدين مسوجين وحن ترمامي إلا بان ترمامي وحن شيء حكمة الآن بان شيء ما أوران دولته محو هيتي أما الدم بيك الشيء أما سيابك كره أو إيدينا مشيلين وحن شعره وحوي مواطن أهان إنتان مصرها إن وحي نصيحة أن سوقت بيه هذا سؤالي ويديسه جواب ثاني سؤالان كره وحوي ومناسب إن كجوابه وحن حق الله هواي marka anigu xigmad la'aan baan sheegay dariiqii uu Xasan qaaday waxa laga yaabaa inaad adigu qaadi lahayd baatiri anigu ma qaadeen dariiqa isaga hadda uu qaaday wax ku bilaabay ma ku bilaabeen waxaan ku bilaabi lahaa waxa weeye inaan ummadda ugu baaqo Ilaahay in loo noqdo Ilaahay la heshiiyo baan horta qodobka ugu horeeya talaabada ugu horeeya aan qaadi lahaa horta kaas waaye sida Maxamed Mursi uu tagay Kacbadii baan tagi lahaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan kaalmo weydiisan lahaa waxaan soo dhisi lahaa dawlad ma garanaysa tayare oo dadku ay aad u soo dhaweeyaan dadka magacyadooda iyo muxuu ahaa xilka hore u soo qabteen iyo aqoontooda iyo kartidooda muxuu ahaa kalsoonida ummadda ay soo celin karta ayaan dhisi lahaa waxaan ku dhawaaqi lahaa waxa weeye musaalaxo inaan la galo xoogaga mucaaradka ah oo hubaysan ayaan ma garanaysaa muxuu ahaa ka bilaabi lahaa dadaal badan baan u gali lahaa waxaan dhisi lahaa waxa weeye guddi qaran oo musaalaxaan sameyn lahaa waxaan dhisi lahaa ma garanaysaa guddi marjac ah oo culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ay ku dhantahay baan sameyn lahaa marka inta sameeyo ayaan u gudbi lahaa marka arrimaha siyaasadda dibadda oo la xiriirta ma garatay dawladka jaarka aanu nahay iyo dawladaha Mareykanka la mid yihiin oo kale taa ayaan ka bilaabi lahaa marka gudahayga markaan islaaxiyo oo aan raadiyo dawlad dhisan iyo Ilaah aan la heshiino oo muxuu ahaa iyo musaalaxa dhexdeena ah ayaan u tagi lahaa ma garanaysaa muxuu ahaa dawladaha kale soo dhaweyntooda iyo waxaan codsan lahaa dawladaha sheeka codsan lahaa waxa weeye faragelinta inay naga yareeyaan naga joojiyaan isla markaasna ma garanaysaa muxuu gacan naga siiyaan xagga dhaqaalaha inay naga siiyaan iyo wax Allah wuxuu isku keeni kara qulubta ummadda Soomaaliyeed musaalaxad dhalin kara inay nagala shaqeeyaan baan ka shaqeyn lahaa kama shaqeeyeen colaad iyo ciidan iyo hubkan laga qaada iyo waa dagaalameena iyo kama shaqeyn dariiqa ma mareen dariiqa isaga waa dariiq kharaaga oo burbura
toban sano dambe hadduu madaxweyne yahay walaalkii xasanna u maraynmayo inuu muxuu guul ka keenayo ma filayo marka anigu nasiix iga tahay waana waajib nasiixadaas waa gartay xaaji maxaa wanaag ah oo aad noo sheegi kartaa dowladan cusub ee federaalka ah ee haatan muddo 4 bilood ah aasaasan way qabatay maxaa dhigi kartaa dartaan talaabooyin wanaagsan ayay qabatay dhan baarlamaan dhan diblomaasiyad dhan walba ay ku aadan dowladan cusub talaabooyin lagu tilmaami karo wanaag oo la sameeyay waa jirtaa sida 60 isbaaro oo siilay dariiqyada muqdisho in la qaado waxaan ku tilmaami karaa inay ahayd ma aragtay talaabo wanaagsan inkastoo aan oran lahaa ma aragtay dadka laga qaadayo shaqooyinkaas shaqo kale oo muxuu ahayd ka shaqaystaan in marka hore loo xiro talabaad oo la qaaday waxa weeye dhinaca diblomaasiyadda aad baan u soo dhaweynayaa in dowladda Mareykanka muxuu ahayd loo tago la soo celiyo xiriirka diblomaasiyadda iyadana talaabo wanaagsan baan u arkaa ciidamada dalka shakhsiyaad ka kooban oo faral xun geystay sida kufsiga oo kale ah oo kale in talaabo laga qaado oo sharciga la mariyo isla markiiba iyadana aad baan u soo dhaweynayaa dabcan marka aan ka eegno dhinaca baarlamaanka shaqo badan buu qabtay waan caadi ahayn baan oran karaa muddadii koobnayd oo boqolkii maalmooda waxaan oran karaa waxa weeye taariikhda Soomaaliya ma soo marin baarlamaan nooca kan oo kale ma soo marin gudoonkiisa uu leeyahay ma aragtay Professor Jawaari xeer hoosaad bay sameeyeen budget bay sameeyeen mushaharadii waxa loo kordhiyay xildhibaanada mushaharooyinkii dhowr bilood waa la bixiyay muxuu ahayd waxay gacan ka geysteen muxuu ahayd ansixintii ra'iisul wasaaraha iyo dowladdiisa howlo badan oo muxuu ahayd ku aadan dhinaca baarlamaanka wanaag badan baan ugu hayay xaqiiqatan ilaa 46 buu sheegay madaxweynuhu maalin la weyd muxuu ahayd fadhi bay yeesheen shirgudoonka Professor Jawaari boqolka maalmood dalka kama bixin oo dalku joogay oo wuxuu dadaal badan gashay in asaaska baarlamaanka in la dhiso baarlamaanka inuu noqdo mid facaal ah oo shaqeynaya oo magaranaysa ummadda kalsoonida soo celin kara baanu aragnay qaybtii kale oo saddexaad oo qaybtii cadaaladda ahayd iyo dhismo badan bay u baahan tahay howlo badan bay u baahan tahay marka waxaan u jeclaan lahaa kale waxa way prioritiska dawladda howlaheeda waqtiga garanayso in ma aragtay laba qofood baan soo oran karaa waa laba qofood oo aan intaan muqdisho ugu shaqada badan waxaan ku tilmaami karaa waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud iyo nin la yiraahdo General Ali Gaab la yiraahdo oo madax u ah ma garanaysa trafficada madax u ah labada nin habeenii maalin ma seexdaan dad laba qofood oo ka shaqo badan wali ma aragano noloshayda laakiin su'aasha la isweydiinaya waxa weeye madaxweynuhu hawshii muxuu ahayd loo igmaday wasiirada iyo prime ministerka iyo generaalada iyo qaadiyada iyo kulli buu hawshii oo dhan buu qaatay oo kaligiis baash ordaya arigaabna traafikada askariga hoose oo dariiqa taagnaa ilaa iyo jarankii isagoo madaxda ah shaqadii traafikada oo isaga qaatay meel walba isaga taagan ilaa xabad lugta kaga dhacdo oo ma garata waa nin dadaalaya labadu waa dadaalayaan laakiin dadaalkaas aan waxaan oran lahaa dhaqsa lagu xiiqayaa waa in nin waliba shaqadii loo igmaday inuu qabto hogaanka wanaagsan waxa weeye kan magacaaba ma garatay mas'uuliyiin tayare oo khibrad leh mid walibana siiya ma garatay muxuu ahaa kalsooni hawshii loo igmaday qofkaas inuu ku kormeero marka kormeer buu leeyahay madaxweynuhu hawl walba inuu qabto ma aha arigaabna saasoo kale hawl kastoo traffic ama qaban karo marka labadani waa dadaalayaan laakiin waxa weeye waxa ka fiicnaan lahayd team ahaan in loo shaqeeyo oo dawladda markaa maxay dawlad ballaaratay oo maamulka kor ka soo dago ilaa hoos soo dhacayo inay noqoto oo muxuu ahayd ilaa 46 wafdi baa yimid dalka 46 waxa qaabilay madaxweynaha qaabilay
maxana waxay ahayd wasiiradu inay qaabilaan ma garatay barnaamijka inuu qaabilo ra'iisul baarlamaanka wuxuu socdaa isaga inuu qaabilo markaan waxaan lahaa waxa weeye shaqada hal la baahiyo wax badan dawladdu oo howla waa ku dadaalaysa inay qabato laakiin waxaan qabaa waxa weeye wax ka sii fiican bay qaban kartay muddada laakiin howlo wanaag lagu tilmaami karana waa qabat xaaji aad baad u mahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinay waxay tahay maadaama aynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka dhowaan waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu booqday dalka Mareykanka waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Mareykanka waxay ka wada hadleen arrimo fara badan muhiimadda kulankooduna waxa uu ahaa dowladda Mareykanka oo si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay aqoonsatay jiritaanka dalka Soomaaliya maxay tahay waxyaabaha ku soo beegay xilligan in ay aqoonsato dowladda Mareykanka dalka Soomaaliya siyaasadda ka dambaysa in haatan dowladda Mareykanka ay aqoonsato Soomaaliyana maxaa gogol xaar u ah ama gogol dhig u ah oo aad nooga sheegi kartaa oo aad ka ogtahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka xaqiiqatan anu aad baan u soo dhaweynayaa dowladda Mareykanka inay aqoonsato maamulka maanta dhisan xaqiiqatan waxa weeye Soomaaliya jiritaankeeda ma aha mid hadda la aqoonsanayo maaha 1960 baan xorriyad helay adduunyada aqoonsaday uu ka mid yahay dowladda Mareykanka marka hadda dowladda Mareykanka waxay aqoonsatay waa maamulka hadda xasan sheekh ay aqoonsatay statuskii marka hore ay joogtay baa kor loo soo qaaday marka taan aad baan xaqiiqatan u soo dhaweynayaa Mareykanka waa dowlad weyn waa dowlad daneynaysa arrimaha Soomaaliya muxuu ahayd in xiriir la sameeyo dowladda Mareykanka kuwa Yurub Arab dowladaha Afrika oo annaga hadda maanta muxuu ahayd jiraanka nala ah gaar ahaan iyo dowladaha Aasiya oo sida Malaysia aan joogno kale iyo waa in xaqiiqatan xagga diblomaasiyadda in laga shaqeeyo waa wax wanaagsan waana soo dhaweynaya arrinta iyada waa hagaag daawadayaal intaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkii gaarka ah aynu ku faaqideynay muddadii 22 sano dhibaatooyinkii dalka ka dhacay iyo siyaabii loo xalin lahaa inagoo barnaamijka qaybiisa dambe aynu ku faaqideynay xiriirkii u bilowday dowladda Mareykanka iyo dalka Soomaaliya oo haatan meelo wanaagsan maraya barnaamijka waxa igu martay Xaaji Maxamed Yaasiin oo kamid ah siyaasiyiinta ugu caansan dalka Soomaaliya aad baad u mahadsantahay Xaaji sida wanaagsan ee aad nooga aqbashay casuumaanteena ee sida barnaamijka nooga qayb qaadatay anagoo mar kale kugu mahadcelinayna waqtigaaga nooga hortay inta aynu kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena intaynu barnaamijkan oo kale dib ugu kulmi doono waa Azhari iyo Xaaji Maxamed Yaasiin oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo